وحناهاي وهديقة دوسيدا وحناهاي وانا معلمك وحناهاي وهديقة دوسيدا وحناهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا أو بحلقا ورابشو وحنكو ورمينو وروريقي مينو ويعن مينو وحسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدو كوابتو نولو الوناكسن الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا بدأ خيرت قيمها بدنا هود النجدة عونيو كل سنة وهذا مركز برنامج كني تطبعت كي وحبر الشلا وحنا طاود الله ود لا دوسة وحالين كان عوا عم استنت تطبعت كي بدهنت ببرنامج كني تطبعت كي وحبر الشلا إنكو قاعد نقدرنا نحد عم بوسدوس اللجنة كنيستيوت أو كم تدوس دجار كلوني كلية لما كلنا هركيس جارهنا واحد أحمد دجح halkaas kula kulnay oo warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa dhamaantii taxalaqda iskuulka iyo ayse kala duwan la siin doona walaalaha dugsigaasi oo isla dugsigaasi kula kulnay Daahir Cabdillaahi Yaasir in wareyn maamul ku soo dhaweeyay telefishinka la xabnaan Ismaaciil Sports Channel iyo waxaad nooga warbixin doontaa aad iyo aad baan u dhaweeyay waan ku mahadnaqayaa boqoshada maanta ay timaadeen aad baan ku mahadnaqayaa in maamul wareyn su'aashan ku balabana barnaamijkan waxbarashada toddobaadkan ee maadaama uu ku soo baxnay dugsiga goobta ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan waaxda Axmed Dhagax in waxa tafaasiil guud iyo warbixin guud aad naga siisaa ee dugsigana la jax qaybaha uu ka kooban yahay iyo waliba ardayda dhigata iyo risalada ku weysay guud aad warbixin uga xilliga la aasaasay maraaxilka soo maray diyaan taa idinka farto marka hore waxaan jecel balana aan horta anu magacayga waxa Daahir Cabdillaahi Warsame waxaan ahay macallin runtii muddo badan soo shaqeynay wasaaradda waxbarashada haddii aan in yar taariikhan wax soo dhigay haddaan idinka warramo waxa weeyaan waa 40 sano weeye marka intaas waa intii warbixintan ay u saabsaneed dugsigan waxaan aasaasay 2003 waxaan ku aasaasay tiro aad u yar oo 6 arday ah dugsigaas iminka wuxuu marayaa 2 qaybood waxa ka baxay 7 dafcadood ayaa ka qalin jabiyay dugsiga waxaan ku dhignaa maadooyinka xisaabta ingiriiska carabiga iyo soomaaliga oo dhamaantood ah manhajka wasaaradda waxbarashada dugsigu wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood al-najah oo ku taala goobta kala joogno oo ah dugsiga qowlaha aad iska diriga ama eega Axmed Gulay waxa dhigtay ilaa 150 arday waxa jirta qayb kale oo ku taala Sinai oo la yiraahdo Najah B waa Najah A iyo Najah B qaybtaan waxa dhigtay ilaa 120 arday isugeyn iminka dugsiga waxa ku jira 170 waxaana rajaynayaa dugsiga inuu halka ka sii wado ardaydu waxay u badan yihiin sida idinka sawir ku faarteen hablo u badan habluhuna wax weeyaan runtii in wax la baraa waa mid aad u muhiim waayo wax weeyaan horaa wax loo yidhinka inaan wax baray waa nin family wax baray marka habluhu wax weeyaan boqolkiiba 8 baan arkaa dugsiga waa hablo marka dugsiga waa dugsiga noocaas waa dugsi private oo ka duwan gashan wasaaradda waxbarashada maadaama aanu ahayn in wasaaradda waxbarashada shaqeynaya maamul hadii salaha hadii aan hore u socno salaha waxbarashada ka taalada barnaamijka maadaama aad sheegtay in muddo kul siman 40 sano aad macallin soo ahayd waxaad tahay markaa macallin aad iyo aad khibrad badan oo dhinaca waxbarashada iyo manhajka ardayda sida loo gaarsiiyo waayaarnimo badan ku qaba waxaad ka warantaa waxaad kaga duwan tihiin dugsiyada kale ee degmada ku yaala ee barakatada gaarka loo leeyahay alla jacayl wuxuu ka duwan wuxuu ka duwan alla jacayl hadii aan siyar faaliyo horta marka hore ardayda waxaan u sameeynaa discount
maadaama dee wasaaradda waxbarashada na siisay dugsiga kale laguma aha maadaama ardayda wax nusma dhiska waxaan ugu dhignaa qiimaha u jaban waayo waxa weeyaan dadkeenu waxa weeyaan waxay u badan yihiin dad aad maaragtay xagga anaqalahooda aad hooseyn taas waxa weeyaan qiimaha ugu jaban afarta maado qiimaha ugu jaban ugu dhignaa qof walba uu maaragtay dee ka faa'iideysan karo sidaasuu kaga duwan yahay wuxuu ka duwan yahay dee macallin khibrad leh oo macallin kale saddex macallin baan ku joognaa oo macallimiin aad iyo aad khibrad leh uu ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay waa dugsi runtii higsanaya inuu maaragtay hore u sii socdo oo fac oo kale sii gaaro isla su-aasha ugu dambeysay inaad hore socotaan haddii aynu su-aalkan kaa weydiiyo waxaad sheegtay dugsiga xilliga aad soo asaasteen waad noo sheegtay asaatee khibradaadii iyo aragnimadaadii macallimiinta kale kula hawlgala adeegsanaya maxaad u qorshaysan oo sanadkan cusub ee kale 2016 maxaa ka bedeli doontaan waxaan ka bedeli doonaa waxaan doonayaa inaan ku darno maadada caafimaadka oo runtii dadku aad ugu baahan yahay waxaan kala doonayaa inaan ku darno cilmiga bulshada si dhammaan maadooyinkii lagu dhigay dugsiga dhexe inaan saan maanta u soo koobno marka hamigayga waa kaas inaan maaragtay dhammaan maadooyinkan ku dhigno oo labada maado dhimanna aan maaragtay aan ku darno hamigayga waa kaas inaan hore u sii socno insha allah marka laga yimaado qaashisaas aad ka bixisay dugsigan ama maxadkan Al-Najah Institute wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa guud ahaanba dugsiyada gaarka ah kuwa dowladda loo maamushaa marka xiriir caynkeeda kama lahayn dugsiga walaalihiin wasaaradda waxbarashada waxa weeye waxaan ka mid ahay macallimiinta ugu waaweyn wasaaradda waxbarashada oo intaas sano soo shaqaynay marka xiriir fiican baan xiriirka wax ka markhaati fiican dugsigii wasaaraddu ay lahayd ayaa baan isticmaalaya marka xiriirka wasaaraddu waa mid aad iyo aad u horsaday anna waxaan ka mid ahay odayaasha wasaaradda waxbarashada ardayda faraha badan ee labada qaybood ee dugsiga ku kooban yahay dhigata oo 270 arday tiradooda ay noogu sheegtay hablo badan soo la caddeeyay maxaa inaba ay ku yeeray tirada inta leeg ama kadib wallahi leeyo su'aashaas waxa weeyaan iminka sababta aksa haddii magaalada Hargeysa eegto dadka aad ku bartay waa female marka insha Allah meel kale waynu ku dadaali doonaa waxaan jeclahay inaan sameeyo wacyigelin badan oo aan si ardayda baartay u soo kordhahay aad baan u dadaalay laakiin anaga iskuulkayga nasiibkayga wax weyn hablo badan markaas soo kama maqnayo sawir in waqtiyadii hore waxa la oran jiray nabada ay dugsiyada loo soo diraayo hablihii guriga ayaa lagu hayaa waxyaabo aynkaas sawirkaas amaba caadaas meeshan ka soo baxaysa ma noqoto iskuulkiina runtii waxa weeyaan waxaan madabriyahan dambe caadadaas oo sii baxaysa waxaana hadda aad u farbadan female-ka aad u farbadan dadka marka waxaan caadadaas bariga loo oran jiray inamad baa xilliga caadadaas marka waa sii raamay runtii sida ka muuqatay iskuulkana ay u soo boqoteen ولو سكول كانوا يهاي دوسي قالوا لي هاي بريفل هذا نبي تشران والدين أرضيدا كم سؤال أو هذا جاي أرضيدا الدين حيسوس كل حلو دوسي والدين كل مني وحويان ما دام أنا عن خلاص كل شيء دائما أنت أول حوار سوي شغالين بركي يقول سكول قاعد يسوي إلا تلو بدي والد أنا هاي وقالش قاعد يحضر الشدة فهمتي أو سوق عشانه وهي كل بسكول كوب هذا بدي أنا أونلاين هاي أنا بدي مياه حسين وكما تنتهي وبحنتها تفسيرنا naga siisay guud ahaan maxadka Al-Najah Institute wadamatii ay gabdhaha barnaamijkeeda ku soo dhawanahay ardayda halkan wax ka dhigtay waalidiintooda ardayda kale degmada degan iskuulada ka dhigata iyo guud ahaan inta daawanaysa waxaan soo jeedin lahaa runtii wax hore waxa loo yiri cilmigu waxa weeyaan waa nuur jahliguna waa wax madow marka iftiin iyo madow waa kala jaad marka dhammaan dadka maartay daawanaya waxaan xusanayaa in laga soo qayb galo oo jahligu waa cadow in laga soo xaroodo oo goobaha waxbarashada ama tayada ha noqoto ama mid kale ha noqotee bal qof walba halkii ku dhow marka dugsigan waa dugsigu soo dhaweynayo aad ku soo dhaweynay sidaan ku sheegay discount badan lacagna yar waa lagu dhigaa marka inta ay daawanaysa ugu dhow maqaayad garanaysa waxaan leeyahay ka soo carra jahliga laga soo carro aad baan idin ku mahadnaqayaa akhirta qiimaha qadarinta xushmada iyo cashadka naga mudan hawada laga daawanayo guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena toddobaadkii waxbarashada ilahantii baan toddobaadkan kusoo qaadanay isla maraantaan aynu ku qaadanay dugsiga gaarka loo leeyahay ee Al-Najah Institute oo ka mid ah dugsiyada ku yaala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa waxaan halkaas uga bixin dheer oo dhinacyada u taabanaysa lagu sii maamulaha dugsigaasi Cabdilaahi Taar Yaasir oo aan halkaas kula kulmay waa kamarada oo loo joogay Khalid Cabdi Bushaari dhinaca farsamada oo loo joogay Aleys Ismaaciil Axmed Daahir Beelbaashi Cabdirasaaq Cabdi Koronto baati barnaamijka waxbarashada oo isku duuban baadan leh salaamu alaykum ورحمة الله وبركاته. هذه
وحنهاي وعن مينو قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوارو وادنكين قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن يا برواقو نبت لقو وداقو أكوار ودنكين ودنه تركين ورابنا يديقو أنكوار دينا ودنكين ودنه تركين ورابنا يديقو أنكوار دينا